maandooriyaal isugu jira xashiishad iyo 55 fuusto oo ay ku jireen waxyaabaha laga sameeyo maandooriyaasha halista ah iyo dadkii ka howlanaa ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada Hodan xiriiryaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga ayaa kormeeray saldhigga booliiska ee degmada Hodan oo lagu soo bandhigay maandooriyaasha la soo qabtay gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Saraad Ibrahim ayaa shir jaraa'id ku qabtay degmada waxa ku sheegay inay fashiliyeen shabakad sameynaysa maandooriyaasha shacabka iyo maamulka iyo laamaha ammaanka degmada Hodan inay fashiliyaan shabakado muqaadaraad ah oo iskugu jira xashiishad iyo waxyaabaha kale la isku sarqaamiyo ama la isku daroogayo kuwaasoo aan aaminsanahay inay bulshada dhibaato ku hayeen bulshadu ayaga ayaa dhibsaday guriyihii looga shakisanaa ayaga ayaa laamaha ammaanka u soo gudbiyay ayagoo la shaqeynaya isla markaasna waxaa laamaha ammaanku jawaab degdeg ah ay ka bixiyeen gudoomiyaha Hodan ayaan weydiiyay dadka lagu soo qabtay howlgalka iyo doorka ay bulshada ku lahaayeen hadda 3 qof u xiran insha Allah wixii kale ay ku lug yeelatana kulleeta process daba dheer weeye ayadana waqtigeeda qaadan doonta hadii alla idin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir oo na garab taagnaa markii aan hawlahaas ku haw jirnay isla markaasna dhiirigelinna la garab taagnaa hawlahaas laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya wixii muqaadaraad ah meelahaas lagu qabtay ayaga ayaa cadeynaya sinfaadkooda iyo noocyada ay ka kooban yihiin iyo waxa ay yihiin iyo wixii darooga iyo wixii aan ahayn ayaga ayaana u soo bandhigi doona shacabka dadkii waxaas ku hawlanaa qaybo kamid ah bilowgeedii iyo dad ka shaqeynaya gacanta lagu hayaa kuwii ka dambeeyay iyo wixii ay ku lug yeelatana insha Allah baarid ay geli doonaan laakiin waxaan mar walba aanan hilmaami doonin oo xusuusan doona qalbigana ku hay doona shacabkeena qiimaha badan iyo laamaha ammaanka xildhibaan Malaaq Ibrahim Aadan Dhaayo ayaa bogaadiyay howlgalka waxaana uu sheegay in bulshadu ay laga maarmaan u yihiin xaqiijinta amniga 55 fuusto oo hadda cala ku jiro wax yar ma ah maxay yeelay degmo isku dhaaf magaalada ay ku filan yihiin inay dhibaato u geystaan markii cidii ka soo shaqeysay ciidamada laamaha ammaanka ha naqdaano degmada shacabka deganaayo oo arday soo sheegay ha naqdaano wamaan walmaan naqa maxay yeelay amniga cid kale kama shaqeyn karto hadii la soo shaqeeyay tagala lama maamulka si goona u mahadnaqa maxay yeelay ani degmadan in badan deganahay maamulkan dambe oo gudoomiyaha kooxii ay markii la magacaabay shaqada laga qabtay ee wacyigelinta la geliyay walana ma soo maray xiriiryaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo garab taagnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali ayaa tilmaamay in maandooriyaasha gacanta lagu hayo ay khatar ku yihiin amniga ayna ku jiraan kuwa loo adeegsan karo baahinta qaraxyada waxaan maanta meeshan u nimid waxa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeedo badan yeelan kara oo hawlgalkii ay sameynayeen ciidamadu runtii hay'adaha amnigu ay ku guuleysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenba ilaa iyo 55 fuusto ku dhawaad oo waxyaabaha ma oran karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yiraahdo ethanolkuna waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxa kale oo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babaaho oo dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addicted ku ah drugana way isticmaali karaan marka waa ujeedo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhicmayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guuleystay dadkii qaarkood gacanta dawladda ku jiraan intii kalena waa lagu dawraad joogaa wax kale oo ku yeesha xiriiryaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay ilaa 55 fuusto oo ay ku jiraan maadooyinka baahiye qaraxyada kuwaas ay gacanta ku soo dhigeen hay'adaha amniga ee ka howlgala magaalada Muqdisho waxaan maanta meeshan u nimid waxa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeedo badan yeelan kara oo hawlgalkii ay sameynayeen ciidamadu runtii hay'adaha amnigu
ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenba ilaa iyo 55 fuusto ku dhowaad oo waxyaabaha ma oran karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yiraahdo ethanolkuna waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babaaho oo dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addicted ku adraagana way isticmaali karaan marka waa ujeedo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhicmayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dawladda ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wax kaloo lagu yeesha Axmed Cali Daahir xeeryaaliyaha guud ee qaranka ayaa uga mahad celiyay ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen fuustooyinka looga shakiyay inay ku jiraan maadooyinka loo adeegsado waxyaabaha qarxa waxaana shacabka Muqdisho uu ku booriyay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan rabaa kaliya inaan shacabka iyo ciidanka hawshan amniga ee gobolka Banaadir hogaaminayo aan ugu mahadnaqo runtii shaqadaas sida degdeg ah oo markii ay ka war heleen ba ay talaabada degdeg ah u qaateen laba maalin ka hor ayay ahayd markii eedaha amniga ee dawladda federaalka ay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ka soo qabteen fuustooyinka looga shakiyay in dareeraha ku jira loo adeegsado qaraxyada waxaana xeer ilaaliyuhu uu sheegay inay wali socoto baaristan ku aadan walxahan isla markaana ku lug lahaanshahooda loo qabtay dad badan oo haddii ay tuhumadaasi ku cadaadaan cadaaladda la horgeyn doono Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho